وحلي دبكي للشداء ودقسي كدامي دونه دقيقة يرقدهن أبحا كل من دونه حسوستنا لغو واي دونه maalmaha ay noqon doonaan wax dhaqsi kugu dhaafa iyo sanado badan oo ay dunidani jirtay imisa sano ayaa ka hartay caalamkan bal adigaba ka fakir dhacdadaasi واقترب الوعد الحق أحداث خروج الدجال وقصة عجيب بدن وقصة نحن له وقصة قفكي نول وسن جعليسان دونين إنو أقارو حيليغاسي وقصة شرط ذا له وقصة مسلم يهودي ولباء كجيفو إنا يدعي دونتو أرنتاسي وقصة إنو سوريي رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد عادة أهيدنا وحن لسعنا إن رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم إساقا وحلقا سورين جري سيد أبي هريرة وكسورين جري سيد تصالك لأبي موسى الأشعري أصحابك لأي وحكا سورين جرين لكن ما أنت وحوح إنو سورين دونا رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم عجيب وحي تري فاطمة بنت قيس الفهري وحن مقلي نادو أما عد دير وعد كسو يري حق رسول كان محمد نحريسي نبتقلي دوشي سهاته تاسيو أهيد صلاة جماعة إسووك عليا وحي تري وحن سؤالي لنك مسجدك وحن لدو كان رسول كان محمد نحريسي نبتقلي دوشي سهاته waxay tiri Faaduma waxaan ku jiray safafka dumarka oo ahaa qaybtii dambe ee masjidka saamarkii uu rasuulka Alle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhameeyay salaadii wuxuu ku fadhiistay minbarkiisii isagoo u qoslaya wuxuuna markaasi amray in uusan qof walba uusan ka dhaqaaqin halkii uu salaada ku dukaday intaasi kadib wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam ma garanaysaan sababta aan isku kin yeeray saadadkii oo dhan waxay ku dhaheen ma garanayno oo alle iyo rasuulkiisa baa og markaasuu ku yiri rasuulka Alle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaqiiqdii waxaan isku kin yeeray ma aha jacayl ama ma ahan inaan idin cabsi geliyo laakiin waxaan isku kin yeeray waa Tamiim ad-Dari oo ah nin ansaari ahaa oo rasuulka Alle sallallahu alayhi wa sallam markaasi la baayactamay oo islaamnimadii qaatay wuxuu ii sheegay ayuu yiri rasuulka Alle sallallahu alayhi wa sallam arin cajiib ah taasi oo aan horay idinkugu sheegay oo ku saabsan masiixu dijaal wuxuu yiri rasuulka Alle sallallahu alayhi wa sallam Tamiim ad-Dari wuxuu raacay doon isaga oo safarkiisa ay ku wehelinayeen 30 qofood oo asxaabtiisa kamid ahay waxa Tamiim iyo asxaabtiisii ku kacday badii oo hirar waaweyn ku kicisay iyadoo doontiina ka burburisay kadibna badii waxay ka tuurtay meel jasiirad ah ayadoo cadceedii sii dhacaysa yacni waa xilli maqrib ay sii ahayd waxayba markiiba go'aansadeen Tamiim ad-Dari asxaabtiisii in ay galaan jasiiradaasi badda ku dhaxtiilay waxay la kulmeen daabo weyn ama xayawaan oo madaxeedii iyo jirkeedii oo dhan dhagor ama timo ay buuxiyeen waxay kala garan waayeen madaxeedii iyo majaheedii yacni waa isku mid madaxeedii iyo lugaheedii markaasay ku dhaheen Tamiim ad-Dari asxaabtiisii hoogtaye adigu maxaad ahayd markaasay hadashay xayawaankii oo ku tiri waxaan ahay jaajuus markaasay waxay ku dhaheen oo waa maxay jaajuuska aad sheegayso markaasay ku tiri xayawaankii qoom yahow ama dad yahow waxaan arkaa inuu war idin hayo haddii uu war idin hayo oo aad doonaysaan inuu war iyo fajac idinku dhaco ordahoo taga gurigaasi waxaa ku jira nin oo idiin sheegi doona waxaad rabtaan saa intaasi kadib xayawaankii waxay magacaawday mid ka mid ahaa raggii meesha joogay waxay sheegtay magaciisii raggii meesha joogina waxaa ku dhacay argagax waxay u maleeyeen waxaasi in ay tahay shaydaan waxay tiri ninkii ay magaciisa sheegtay orodoo kooxdaada u sii kaxay gurigaasi ama macbadkaasi raggii waxay u soo dhaqaaqeen halkii loo soo tilmaamay markii ay soo galeen waxay ku arkeen qof weyninkiisii aysan weligood aysan arkin wuxuu ku xirxirnaa mid ka mid ahaa tiirarkii guriga ku dhex yeelay waxay arkeen ninkii gacmihiisii oo luquntiisii iyo dhuuntiisii la isku xiray wuxuu ku xirxirnaa biro aad iyo aad u adag Tamiim ad-Dari wuxuu sheegay in ay ku dhaheen halaagtaye war adiguna maxaad ahayd saa wuxuu ku yiri ninkii weynaa aniga warkayga waad hesheen ee bal isku kay sheega maxaad ahaydeen idinkuna markaasay ku dhaheen inagu waxaynu nahay dad carab ah oo waxaanu soo raacnay dooni waxa inagu kacday badii oo mawjado waaweyn muddo bil ah ina waday oo marba dhinac inoo siday kadibna waxay badii inaga soo tuurtay jasiiradan yar
waxaynu la kulannay xayawaan weyn oo aan garan weyna madaxiisii iyo lugihiisii halkay ay xigaan xayawaankii adiga ayuu inakaa soo tilmaamay wuxuu ku yidhi ninkii waan gartay bal waxaan idin weydiinayaa su'aalo wuxuu ku yidhi waxaad ii sheegtaan geeda timireedka ku yaala baysaan waa meel ku taalla shaam oo u dhow dalka urdun waxay ku dhaheen maxaad inaga weydiinaysaa wuxuu ku yidhi geedahaasi wax timir ah ma dhalayn ama midho ah ma dhalayn saa markaasi waxay ku dhaheen haa markaasuu ku yidhi waxaa laga yaabaa in aysan dib dambe midho aysan u yeelan markaasuu wuxuu ku yidhi haddana bal ii sheega oo iiga warrama buxayra dabariya waa meel ku taalla dalka urdun waxaana maanta gacanta ku haysta yuhuudda waa meel 2 buurood oo biyo ay ka buuxaan dhexdeeda markaasuu wuxuu ku yidhi biyo ma ka buuxaan halkaasi waxay ku dhaheen haa waxaa ka buuxa biyo badan markaasuu ku yidhi waxaa laga yaabaa in biyahaasi ay ka suulaan oo dib dambe aan loo arkin markaasuu haddana wuxuu weyddiiyey ninkii weynaa bal ka warrama caynu zuqar waa meel ku taalla shaam markaasay ku dhaheen maxaad inaga weyddiinaysaa iyadana wuxuu ku yidhi wax biyo ah oo ay dadka ka waraabaan ma ku jiraan halkaasi saa waxay ku dhaheen haa oo biyo badan ayay leedahay wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa in biyahaasi ay engegaan ama aan dib dambe loo arkin nimankii aad bay u yaabeen waxay la yaabeen ninka sida uu dhulka u kala yaqaano saa wuxuu ku yidhi haddana su'aal kale bal iiga warrama nebiga ummiga ah muxuu sameeyey waxay ku dhaheen wuxuu ka soo baxay magaalada maka wuxuu soo degay yasrib oo madiine ah wuxuu ku yidhi miyay la dagaalameen carabta waxay ku dhaheen haa saa wuxuu ku yidhi muxuu sameeyey haddaba isaga waxay u sheegeen kolkaasi inuu ka kor noqday intii carabta ahayd ee isaga xigtay yacnii uu isaga ka gacan sareeyo saa markaasu wuxuu ku yidhi wallee armay ku habboon tahay in ay isagaasi addeecaan oo mid ka qayr badan dunidaani maanta ma jooga allaahu akbar bal ka waran waxa nuucaasi oo kale ah qofkii iska indhatira markaasay nimankii aad ula yaabeen markaasi waxay ku dhaheen warniyahow aad baad dhulka u kala taqaannaa ee waxaanu ku nidhi adigu kumaa tahay wuxuu yidhi haddaba anigu waan isku kiin sheegayaa anigu waxaan ahay masiixu dijaal yacnii waxaan ahay beenlowgii weynaa waxaa soo dhow xilligii la isoo furi lahaa oo adduunka liigu soo fasixi lahaa waxaan mari doonaa adduunka oo idil si xawli ah oo orod ayaan ku mari doonaa mana ka tegi doono xitaa tuulo yar ilaa aan kaga dego 40 maalmood ayaan joogi doonaa waxaana la ii diidi doonaa inaan galo magaalada Makka iyo Madiina xaqiiqdii labadaasi waa iga xaaraan inaan galo haddaba walaalayaal qisadan waxay inoo sheegaysaa in masiixu dijaal uu ku garbaduuban yahay ama uu ku xirxiran yahay meel ka mid ah jasiiradaha ku xeendaaban jasiiradaha dalka carabta laakiin allah og meesha uu ku xiran yahay oo ma garan karto cid garan kartaa ma jirto xitaa googalka hadduu isku dayo cid garan kartaa ma jirto waayo qisadan waxaynu ka dareemaynaa in ay ku jiraan waxyaabo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qariyey haddaba walaalayaal qofkii doonaya in uu allah subxaanahu wa tacaala shartiisa uusan gaarsiinin haddii ay dhacdona inaad xilligiisa gaarto waa inaad xifdisaa 10 aayadood ee ugu horeeya suuratul-kahf ama 10 aayadood ee ugu dambeeya suuratul-kahf waa sida ay warin kale leedahay walaalayaal alla subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaynaa inuu shartiisa ina dhinac marsiyo waxaan alla subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu waalidkeena iyo caruurteena iyo nafteena iyo dhammaanteen inuu ilaahay nagu shartiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii khayr ah ilaahu xilligii khayr ah ina gaarsii ilaahu shartiisa ina dhaafsii waa walaalkiin xasan cismaan oo sidaas idinkaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu